From this rostrum, many speak about a two-state solution, but speaking about this solution is not sufficient. We need to act. waa khudbaddii hogaamiyaha islaamka uu ka jeediyey kulankii qaramada midoobay ee sanadka 2017 khudbadda madaxweyne Erdogan aad bay u dheer tahay laakiin waan soo koobayaa waxaana soo qaadanayaa inta ugu muhiimsan walow hadalka oo dhami uu muhiim ahaa haddana khudbadda oo dheer awgeed waxaan jeclaystay inaan dul maro kana soo qaato qodobo aad u muhiim ah waxaana uu ku bilaabay shaqada UN-ka waa mid howlgab ah haddii indho aad leedihiin maad ku eegtaan dhibta ka socota Burma maad eegtaan gumaadka ay geystaan diyaaradaha droniska anigu wax kasta waan fahansanahay laakiin runta ayaan idiin sheegayaa sidani socon mayso Iraq Burma Afghanistan iyo dhammaan dhulalka islaamka waxa qasaya waa dalalka sheeganaya in dimuqraadiyad la isku maamulo reer galbeedka marka ay 2000 hal mar dilaan qaramada midoobay maalintaas ma shaqayso muslimiinta Burma waxa nolosha lagu aasayaa dad islaam ah oo dalkooda jooga 600,000 oo muslimiinta Rohingyaska ayaa u qaxay Bangladesh oo aan u haynin meel ay degaan iyo waxay cunaan ama ay cabaan wax eegaya ama ka hadlaya ma aragteen miyay taasi gumaad iyo xasuuq ahayn mise hogaamiyayaasha islaamka waxa ay sameeyaan oo kaliya ayaa dembi ah islaamka Burma waxa ay ku jiraan xaaladii ugu darnayd sidaas oo ay tahay qoraal la xariiqay ay qaramada midoobay uga hadlayaan ficilna ma jiro sabab waxaan rabaa inaan idiin cadeeyo in hal wadan oo kaliya amarkiisa ay halkan ka socdaan haddii maya uu dhaho waa maya haddii haa uu dhahana waa haa aawi dimuqraadiyaddii la sheegayay ogaada Turki ma ahan wadan qaadan kara go'aamada halkan lagu gaaro ee hal wadan uu dabada ka riixayo Mareykanku maslaxadiisa aad buu uga fikiraa laakiin tan wadamada islaamka kama fikiro ee inuu kor ka maamulo ayuu doonayaa taasina ma ahan wax dimuqraadiyada Trump waad aragteen khudbadiisii ku aadanayd North Korea ee uu lahaa waan burburinayaa Kuuriyada Waqooyi oo aawi qaramada midoobay halkee ku jireen marka xaruntooda dagaal lagu maleegayay yaase dagaal aan geli karin waqtigan xitaa wadan liita wuu dagaalami karaa qadiyadiisa iyo dhulkiisa awgeed waxaan rajaynayaa in waxa aan ka hadlayo la xaliyo haddii taasi aysan dhicin fadlan hadda inoo sheega halkan sanadka dambe ha la iska xiro ilaahay baan kaashanaynaa annaga ayaa arrimaheena isugu filan cid u baahani ma jirto marka xaqiiqada laga hadlo halkan waxa fadhiya hogaamiyayaashii islaamka waxaan doonayaa inaan khudbadan uga faa'iideysto war ogaada dal kale aayihiina kama shaqaynayo ee idinku isku tashta Turkigu waxa uu diyaar u yahay inuu difaaco wadan walba oo dhibaato lagu hayo tusaale ahaan islaamka Burma oo kale wallahi inaysan shaqayn doonin maskax kale iyo amar gadaal laga soo riixayo We need more efficient and swift decision-making mechanisms in order to address global and regional problems, and moreover, the United Nations should act more bravely to remain on the correct side of issues. Distinguished guests, let me point out to another issue. We do not approve any kind of terrorism that is supposedly carried out in the name of religion. We believe that such actions are a huge disrespect to all religions. And we strongly condemn coupling Islam, which means peace, with terrorism.
It is indeed very offending that Islam and terror are used together. Similarly, those labeling their inhuman actions as Islamic disrespect the religion of Islam as well as all other religions and humanity.